waxaa halkan sida maanta aad arkaysaan ka dhacay dhagarqabayaasha sida caadada ay waxay ku soo qaadeen weerarkaas oo ay doonayeen inay gudaha magaalada u soo galaan. Waxay wateen gaari nooha ah, gaarigaas oo ay saarnaayeen laba dhagarqabe iyo darawalkii. waxaa ciidanka amniga ee halkan ku sugan ee barta control ku leh u suurto gashay inay ka hortagaan oo ay joojiyaan oo celiyaan. kadibna markii isku dayga ama hor istaagga lagu sameeyay waxaa ka dhashay israsaaseyn. labadii dabley iyo darawalkii iyo ciidankii amniga ee halkan ku sugnaaba waxaa ka dhacday israsaaseyn. goobtan waa ex control afgooye. waa taqaanaan sida ay biisiga u tahay oo mashquulka u tahay oo shacabka iyo gaadiidku ay isku dhaafaan. israsaaseyntii waxay suurto gelisay gaadiidkan aad arkaysaan shacabkii saarnaa inay ka degaan oo ay kala cararaan, oo runtii aan ilaahay uga mahad celinayno inay intoodii badnayd dadkii gaadiidkan saarnaa ay bad qabaan oo ay ka badbaadeen. israsaaseyntii kadib waxaa dhacday oo ka dhashay qaraxa aad hadda halkan aad uga jeedaan oo dhagarqabayaashii halkan joogay ee damacsanaa inay gudaha magaalada u galaan ay ku dhinteen. tirada dhimashada waa 2 qof oo shacaba. waxaa naga dhaawaca askarigii is-hor istaagga ku sameeyey oo barta control ku qornaa saaka, iyo 6 dhaawac ah oo ka tirsan shacabkii ereyada ka ag dhowaa. ciidanka waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo sida ay mar walba heeganka ugu jiraan inay ka hortagaan falalka argagixisada lidiga ku ah ee amniga magaaladan raba inay dhibaato u geystaan oo dhibaato u geystaan shacabka magaaladan ku nool. halkan oo ah baraha ugu muhiimsan ee magaalada laga soo galo waxay ciidanku mar walba ka muujiyaan feejignaan dheeriya. sida arkaysaan nimankan waa u suurtageli weysay inay magaalada goobihii laga soo geli jiray ka galaan. waa u suurtageli weysay gudaha magaalada inay sidii caadada u ahayd xoogooda ay ku diyaariyaan qaraxyadii iyo maaragtay walxihii ay magaalada ku dhibaateyn jireen. hadda waxay naflacaari leeyihiin inay barihii control iyo goobihii laga soo galayo ciidanka amnigu ay ku diyaarsanaayeen sida ay xoog ugu soo gali lahaayeen. annaga marka waxaan diyaar u nahay mar walba inaan ka hortagno, ciidankeenuna ay diyaar u yihiin naf iyo naftaba u huraan inay mar walba is-hor istaag ku sameeyaan. shacabka halkan hantida uga burburtay sida gadaasheeda ka muuqatan waa uga tacsiyeenayaa. ilaahayna waxaan rajeynayaa inuu bedelka khayr qaba ugu bedela. waxaa ka muhiimsan inaan markaas ka hortagnay khasaare intaan ka badan inay ka geysan lahaayeen gudaha magaalada ama isla bartan control hadda aan ku sugannahay.